waxay isbarteen gabadhi maaragtaa noloshiisa wax badan ka bedeli lahayd markii wuxuu yiri maalinta dambe wuxuu weydiisay uu yiri waxa uu tiri uu yiri maxaa keenay inaan waxyaabo asxaabna wuxuu yiri mar hore aan saseegnay guriga wuxuu yiri keligay baa qolku ahay qolkaasaan waxaan u arkaa uu yiri inaan maaragtaa waxyaabo dad badan noloshooda wax badan ka bedeli doonto sababtana maxay tahay aqiigu waxa uu gaaray aan maaragtaa cidiyahayga ama farahayga cuno waxaan ay qof dhaqtarada marka waxaan rabaa bay tiri insha Allah inaan ku siiyo laba qodob green hebel soo qaada cad سان سمي ميدهم بيرو قلك مجدي أكو حرمتها يدك أصحابتي هلك كجودين إن شاء الله إني معركة حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مركة وجارتو قب هجاكسن بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها قيارة أصحابتها نجعل هاي أجان الكيجان واني وعيجلن كحرم ولا عليها السود وهذا لما ولا لها يقول عشبنا السود وين واحد لا السود وهذا قام فرن السود وهذا أخيار يا أصحابي ما أنتوا حربا إن شاء الله إن إذن لو ذاقو قصة آديات عجيب وقصة سيتو إن شاء الله إلى إذن كيس ضد بدن ورشوا هذا واحد بدن كرب بدل دونتو صوتنا محيط هاي قصة نيتي إن شاء الله لابد قضب بيك هذا سيوحيهن لابد قضب وآديات فائدة فربضن أوله وحان جردت فربضن أو قضب بضع سينفعايان ودباتة قصة نيتي إيك هذا سنة ما أنت لنول ninka dhalinyarada ay qisada neetay qusayso ama qisada neet ka sheekeynay wuxuu yiri waxaan ahaa qof aad iyo aad u carab badan waxaan ahaa qof xanaaqiisu uu yahay xanaaq ma aragta xad dhaaf ah waxaan xanaaq baahayn ama xanaaq yeeni karin ka xanaaqo mararka qaar waxa dhacaysa buu yiri wax iska basiid ah oo dadka kale ay u arkaan wax iska fudud in aniga cara aad u daran ka muujiyo xanaaqan lama dhihi karo xanaaq iska normal ah maxay dadku way xanaaqaan laakiin wuxuu leeyahay heer xanaaqiigu waxa uu gaaray aan ma aragta cidiyahayga ama farahayga cuno dad badan waxa jira markay xanaaqaan cidiyahooda ma aragtaa cuno si ay carada yacnihi uga baaba'do marka wuxuu leeyahay markuu cabiraayay xanaaqii seerku gaarsiisan yahay qof noocaas ahaa waxaan ahaa qof dadkiisii asxaabtiisii iyo ehelkiisiiba ka go'ay sidoo kalena waxa uu leeyahay waxaan ahaa qof wax kale iska day xataa ardaydii iskuulka ka gaar noqday wuxuu yiri ardayda iskuulka aniga waxaan ahay qof ka gaar ahaa qof aan la socon karin maxaa yeelay qof waxaan baay wax walba ka caroonayso maan sida daraadeed marka ma balahan sabab aan ayaga ku midowno ama sabab aan ayaga ma aragta saaxiib ku ahaano wuxuu yiri anigu ma lahayn wax saaxiib ah ehli asxaabna wuxuu yiri mar hore aan saseegnay guriga wuxuu yiri keligay baa qolku ahay qolkaasaan waxaan u arkaa buu yiri inaan ma aragta waxyaabo fara badan aniga cara gelinayo aan kaga nabadgeliyo marka wuxuu yiri anoo sidii iska ah oo qolkaas isaga xiran oo ehli asxaab iyo cid walba ka go'day dhahay ayaa maalmaha kamid wuxuu yiri qadka iska galay qadka marka iska galeen wuxuu yiri qadka waxaan iska barnay waxay isbarteen gabadhi maaragtaa noloshiisa wax badan ka bedeli lahayd waxayna isbarteen qodobadan aan ka hadlayna gabadha maanta maaragtaa aasaaskii gundhiga u ah gabadhaas waxay ahayd gabar dhaqtarad ah dabcan qadka iska barteen isku magaalo isku wadanna ma joogin wuxuu yiri asxaab baan marka hore iska ahayn buu yiri wax sheeko xiriir isku kaansi midna gama dhaxeeynin laakiin dad asxaab ah baan ahayn bas oo qadkaasi ka wada hadlo anigana waxaan u arkay buu yiri waqtigaas ayada aan siinaayo inuu ii yahay waqti ma aragtaa firaaqan faraha badan leh aniga aan la noolahay ii buuxinayo wuxuu yiri gabadhi maalmaha kamid ayaa ma aragtaa ama maalmo badan baa ay raahday baa waxa dhacday buu yiri inaan wax aan macna lahayn aan ka caroodo anaga waliba najaatin bas ay tahay oo waliba cod bal wada hadlaynin gabadhu way yaabtay buu yiri mar walba wuxuu yiri way raali gelisaa waxay isku daydaa buu yiri waxaasii basiidka aan ka caroodo inay iga raali geliso wuxuu yiri maalinta dambe wuxuu weydiisay buu yiri waxa uu tiri buu yiri maxaa keenay inaan waxyaabo aan ma aragtaa carab mudna inaa ka carootid wuxuu yiri qisadii uga sheekeeyay anigu waxaan ahay buu yiri qof noocaas qolkaas isaga xiran dadka ehelkii asxaabtaba ka go'ay sababta uga go'ayna wuxuu yiri casabiyad waxaan qabaa buu yiri ama cara saa'id ah oo dadka kale carooyinkooda ka duwan baan qabaa buu yiri marka wuxuu yiri dadkii oo dhan waa heshiin weynay haddana waxaan u arkaa buu yiri aniga adig laftirkanaga inaan heshiinaynin ka waran haddaan qof yahay aniga adig isdayno oon kala leexanaba ammaan isa siino waxay dhahday buu yiri maya dhib ma lahan aniga caradaadaasi waxba uma arko asaa ogtaan anigu waxaan ahay qof dhaqtarada marka waxaan rabaa bay tiri insha Allah inaan ku siiyo laba qodob labadaas qodob oo caradaanay saa'idka ah ka caawin doono dhicna doonto insha Allah sidii yiin hadaa u raacdid oo marnaba aadan khilaafin ma aragta inay ku caawiyaan oo qolka mugdiga ku xiran tahay dadka asxaabtii helka ka go'deen insha Allah inay ma aragta daawo kaaga noqdaan oo dadkaaga iyo noloshaada aad dib ugu laabat saayidin soo sheegay gabadhu wuxuu yiri waxay ahayd gabar dhaqtarada waxaan ka sugay buu yiri inay tiraahdo biyo badan cab daawo heblaayo ama green hebel soo qaada cab saan samee meedhim buu yiri waxay ugu dhahday buu yiri laba arrin bas samee arrinkood waxay yahay bitri meesha ma aragtaa markaas ku carootid wax allaaliya wixii doonaba ahaadaan wixii ku caragiliye adigu meeshaas isla markiiba ka tag waxay doonto meesha ahaato isaga tag meel kala tag
laba safxadood oo qur'aan ahna soo aqriso wuxuu yiri marka waan yaabay buu yiri oo ma labadaas bes ma kaafiriin buu yiri labadaas arin bes inay ugu talinaysid waxaaga wuxuu yiri jas miyaa igu ciyaaraysaa war kugu ciyaar maya waxay tiri quraankuna waa daawo caradana waxay tiri meesha goobta ku carootay hadaa ka tagtid bay tiri waxay tiri wax badan baa noloshaada iska bedeli doonay adiga bal talada qaado oo hadii amaanta ku dhihi laakiin cab ama maarta sharoob hiblaayo cab waa qaadan lahayd adu labadan qodob qaado soo natijaabi kadibna natiijada iyo waxa ka faa'iidid insha Allah ay ula soo laabo waayahay baan dhahay buu yiri intaas kaliya miyaa haye wuxuu yiri quraankana dawaa iska fududahay oo maaragtaa hadaa xataa kitaab markaas leeli karin wuxuu yiri mobilka meel walba lagu soo degsan karaaba uu kugu jira laba safx quraan ay aqri waliba quraanka marka aqrisinaysid tiri waa ina ismaqashiisay tiri yacni cod dheerna ina ku aqrisid maan laakiin in yaro adiga dhagahaaga ay maqli karaan bas wuxuu yiri waa inay maaragtaa ku aqrisaayo dhahay wuxuuna dhahay gabadha baa dhahay safwan waxayna tiriyo kaleentood meeshaas iyo waxaas ku carootay ku carageliyin isla markiiba ka tag waan sameeyay buu yiri taladii baan qaatay buu yiri maalintaas wixii ka dambeeyay wuxuu dhahay taladii ma khilaafin taladii markaan qaatan wuxuu yiri wallahi billahi wuxuu dhahay si aanan filaynin bay taladaas igu shaqaysay buu yiri caradii iyo xanaaqi iyo maaragta casibiyadii aan gacmahayga la cunaayeen waa iga baaba'een buu yiri gabadhin wuxuu yiri aad baan ugu duceeyay buu yiri waxaan ku dhahay buu yiri adiga sidee waa kula soo laabtay la feedback baa laga sugay Soomahan adiga wuxuu yiri arintan intee ka keentay qof dhaqtarada tahay waa ognahay wax kalena dadka ku caawisid maaragta dhaqaatiirta looga bartay adiga taladaani taxagee ka keentay gabadhan waxay tiri taladaaniiti aniga waxa ahaan jiray bay tiri qof dhibaatadan la nool qof aad u carab badan qof noloshii oo dhanba ka soo xirxirmatay kadibna waxay tiri taladaaniiti aniga tajrubadeeda qaatay bay tiri waan sameeyay bay tiri bal ka waran hadii aad horto waxaan ku caraglinayna isaga tigid quraankana saa ognahay day qulubtu u dajiyay bal ka waran hadii ay qulubtaadan kacsan ee caradu ku abuurantaada quraankaas ku dajisid taladaasna ani marka ii shaqaysan wuxuu yiri waxay tiri qof walbo aan arko oo dhibaatadan oo kala nool taladaanan siiya mana arkin bay tiri qof maaragta ku qasaaray oo taladaas feedback xuniga soo celiyay waarjina akhyaari asxaabe qisada siiti wiilkaasi gabadhaas dhaxmartay labada qodob maaragta talaahanta isku siiyeen in dad far badan maanta anfici doonto insha Allah hadii aad tijaabisiin nabiin ilaahi albaari waxa rajeenaa sidii ayaga ugu shaqeyso kale in idinku ugu shaqeyn doonto insha Allah ila idinkiis midna waa dabiici iyo horta quraanku waa daawo cid walba taas way ogtahay tan labaadne waxa ayna sheekalo iska dabiici ah hadii aad ka tagtid meesha aad ku carootay ama meel kale aad tagtid in maaragta caradu ay ka dageyso laakiin xaaladda caradu kugu dhalisay hadii aad wali ku sii dhex jirtid shaydaanku waxa weeyaan dabku kugu sii hurinaya wuuna ma aragtaa dhibaato ka daran inaa sameeysid ayuu ma aragtaa kugu xambaaraya qisadan inta saarba inaan kusoo gabagabay insha Allah waa maasantiin waxaan ku maasantiin daawashadiina sida quruxda badan ay la socotiin insha Allah qisadan qisa lamid inta ku kulmeen waxaan kaga tagayaa waxay tahay salaanta salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh